sidaan hore idinkugu sheegayba 3 degmo oo ka tirsan Puntland ayaa maanta waxa ka dhacay doorashooyin qof iyo cod ah oo markii ugu horeysay deegaanadaasi lagu qabto tan iyo markii la aasaasay dawlad goboleedka Puntland. doorashadani waxa ay ka dhacayaan degmooyinka Qardho, Eyl iyo Ufeyn waxayna hore dhac u yihiin doorasho guud oo la rajaynayo in ay Puntland oo dhan ka dhacdo. haddaba warbixintan waxa magaalada Qardho inooga soo diray Maxamed Xasan Dhalo. 23 sano oo Puntland jirtay waxa ay markii ugu horeysay fursad u heleen inay codkooda dhiibtaan kuwa inay codayaan u soo jarmaadayna waxa kamid ah waayeelka iyo dadka baahiyaha gaarka qaba. madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa isaguna halka codkiisa ka dhiibtay. runtii doorashadan sida qof kasta oo Soomaaliya oo maanta dareensan in xuquuq ka maqneed ay jirtay ay ugu faraxsan yihiin in xuquuqdooda u soo noqotay ay bilow u tahay dhammaan in dadka Soomaaliyeed u soo wada noqoto ayaa aniguna ka mid ah dadka Soomaaliyeed oo waliba aad ugu faraxsan oo waliba ka qayb qaatay inay hirgasho arrintaas. marka runtii maanta qof aan ku faraxsanayn oo ka naxay anigu ma maleynaa inuu jiro Soomaaliya. in ka badan 50 goobood oo ku yaal 3 degmo oo kamid ah Puntland ayaa sidan looga dhimanaya codbixinta golayaasha deegaanka degmooyinka Qardho, Eyl iyo Ufeyn. aniga 80 baa hadda jira waana codeeyay oo maxaan rabaa oo kale haddaan mar 80 ku codeeyay waa barwaaqe maxaa ku hadlaysaa yaa 80 jir codeeyay oo aan la jiidayn codeeyay سليمان ما صباح ساكا فرحت آد يقول ما بجرب وحوي بركة دلك يو هجان سمي أو هلاي دد هجامية دد عذية دلك أجيمي دد كأجيمي أيان هلاي doorashadani waxa ay hordhac u tahay mid la rabo in laga qabto dhammaan degmooyinka Puntland bartamaha sanadka soo socda. in ay hirgashana waxa ay Puntland uga dhigan tahay talaabo hore loo qaaday. wallahi wax badan bay uga dhigan tahay Puntland iyo Soomaaliya guud ahaan waxay uga dhigan tahay in doorasho in ay qabto oo la organize gareeyo ay suurtagal tahay waxay uga dhigan tahay in doorasho la qaban karo oo laga daahay uga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay in si kasta loo daaho ay khasab tahay maalin oo la bilaabo karo uga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay dadka adduunka oo dhan waxay uga dhigan tahay oo ah in xuquuq kamid ah xuquuqaha ugu horeeya oo qofka muwaadinka uu leeyahay oo dib loo soo nooleeyay dhowr iyo 50 sano kadib uga dhigan tahay waxay uga dhigan tahay cashar oo Soomaaliya inteeda kalena laga sameyn karo ayay ka dhigan tahay oo kaliya u baahan tahay rabitaan iyo ka go'naansho inay u baahan tahay kaliya. in ka badan 37,000 oo qof ayaa qaatay kaarka codbixinta dhammaan degmooyinka saddexda ah waxaana loo kala codeynayaa 8 urur siyaasadeed. doorashadan ugubka ku ah Puntland waxa goob joog ah kor joogto isugu jira Soomaali iyo ajnabi. waxaan aragnay inay dadku aad u doonayaan oo ay ka qayb galayaan safafku waxay bilaamadeen saaka aroortii markii aan nimid goobaha codbixinta 6 subaxnimaba waxaa joogay boqolaal qof oo sugaya inay codeeyaan. sidaa darteed xaqiiqdii waxaad arkaysaa dadkoo runtii ku faraxsan inay codkooda dhiibtaan oo ay codeeyaan markii ugu horeysay taariikhdooda qaar badan oo iyaga ka mid ah. natiijada halka ka soo baxda ma go'aamin doonto guul xoogan laakiin marka doorashadu ka dhacdo dhammaan degmooyinka Puntland 3 urur siyaasadeed ee xubnaha ugu badan hela golaha deegaanka ayaa noqonaya xisbiyo kuna tartami doona baarlamaanka soo socda. Maxamed Xasan Dhalo, Qardho.